maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay waxqabadkii muddadii ay hayeen xilka. haddaba waa kan wariyaheena Abshir Maxamed Mandela oo warkaasi inoo haya. kulankani oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee 6 gobol Madaxweyne Nuno Maxamed, wasiiro, xildhibaano, odayaasha dhaqanka iyo dadweyne kale oo ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. kulankani oo ujeedadiisu ahayd mid markaasi lagu soo bandhigayay waxqabadkii maamulka intii uu jiray iyo horsocodka maamulka uu doonayo inuu ku talaabsado mustaqbalka dhow. munaasabadan oo ugu horeyntii uu ka hadlay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee 6 gobol Madaxweyne Nuno Maxamed ayaa sheegay in maamulkiisu uu yahay maamulka rasmiga ee ka jira gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya. sidoo kale afhayeenka cusub ee dhawaan loo magacaabay inuu noqdo afhayeenka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Fawzi Cabdinuur ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay. gobolada koonfur galbeed Soomaaliya in codkaas saajeedi in isan la qaadin inta kale Abshir Maxamed Nuur Mandela, Royal TV, Baydhabo.